السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وأنا وهم على محمد إبراهيم. halkan waxaan kasii wadanaynaa casharadeenna taxanaheena waxaan ku baranaynay advanced excelka. maanta waxaan baranaynaa cashar muhiim oo loo yaqaano purchase order in excel. markaad company haysato sida mataqaanaa loo sameeyo mataqaanaa marka order alaab lagaa soo dalbado aad mataqaanaa customerkaaga wax ka iibinayso uu kaa soo dalbado order ama wax kaasoo uu dalab kaa dalbado muxuu ahaa sida loo sameeyo reciipka sida warqadda loogu diyaariyo sida loo diyaaro mataqaanaa excelka sida loogu diyaariyo ayaan isla baranaynaa waxaan mataqaan hadda muxuu ahaa sheetkan anaa diyaarsaday laakiin adoo diyaarsan kartaa colorka rabta ayaad u yeeli kartaa mataqaanaa saa rabto ayaad u samaysan kartaa laakiin muhiimaddu waxa waaye qaabka inaad u samayso waaye sida mataqaanaa wax qurux badan ugu ekaado xagga marka warsa waxaad qoraysaa purchase order in excel ayaa qoraysaa haddaad rabto excel waa ka baabiin kartaa purchase order ayaa qori kartaa business name ganacsiga mataqaanaa kambanigaaga magaciisa ayaa xagga kor ku qoraysaa kambanigaaga magaciisa hadda kambanigaaga waxaa lahaa barwaaqo kambani ayaa lahaa xaggan officekaaga xafiiskaaga meesha adresska meesha ku yaala ayaad ku qoraysaa hadda waxaa office numberka wuxuu ku yaalaa waxaa muxuu ahaa 422 new bosaso near masjid faadima baan ku qor adresska meesha ku yaala oo mataqaanaa kambanigu numberka lagala soo xiriiri karna waa ka waaye taariikhda dateka kale xaggan waxaan gelinaysaa dateka maanta waa 8 waaye bisha 8 2021 ayaa leedahay halkan purchase order numberka qofka mataqaanaa alaabta ka dalbaday order numberkiisa waxaa dhihi kartaa 143 ayaa dhihi karaa oo ku qoraya xaggan supplier name waa maxay supplier namekiisa waxaa la qofka ninka alaabta soo dalbaday waxaa lahaa Faarax Axmed supplier adresska meesha jooga ama magaalada jooga waxa waaye Boosaaso ayaa dhihi karaa waxaa dhihi karaa waxa uu soo dalbaday oo dhihi karaa tusaale ahaan wuxuu soo dalbaday fan ayaa dhahaya marawaxad ayuu soo dalbaday quantity wuxuu soo dalbaday fan tusaale ahaan 200 xabo marxada ayuu soo dalbaday ala marwaxad waxay joogtaa dhaxay karaa wuxuu joogtaa marwaxad waxay joogtaa ala xabo $15 ayay joogtaa waxa kale uu soo dalbaday muxuu ahaa iron oo ah mataqaanaa ferro wuxuu soo dalbaday oo kale tusaale ahaan dhaho iyadana 150 xabo ayuu soo dalbaday ferro iron waxay joogtaa iyadoo taxdii kara $10 hadaan dhaho waxa kale uu soo dalbaday oo kale laptop ayuu soo dalbaday laptop ayuu soo dalbaday oo soo dalbaday laptop muxuu ahaa 100 xabo laptop ayuu soo dalbaday oo ala laptop wax dhig kara wuxuu joogaa $600 marka xaggan waxa ku qoraysa total amount-iga oo mataqaanaa lacagta guud ee amount-iga inta fan qiimaheedu inta marxado ka dalbaday ala xabo waa maxay waa $15 marka total sida isku dhufto marka waxa dhahaysaa equal ayaa leedahay marka equal la dhahdo waxa ku dhufanaysaa price-ka ayaa leedahay then multiply waxa leedahay lagu dhuftay quantity inta xabo oo dalbaday total tan inta ayaa leedahay marka $3,000 ayaa noqotay lacagta total mataqaanaa fan marwaxadaha ah haddaan dhaho also aan dhaho hadda xagga saa u soo jiido hoos hadda saa ugu soo jiido total amount kale soo baxay automatic ahaan ayuu soo baxaya iron waxay noqotay lacagtooda $1,500 ayay noqotay muxuu laptop waxay noqotay $60,000 ayay noqotay marka sidaas marka xaggan waxa ku qoray total amount-iga waxa dhahaya equal ayaa leeyahay sum marka dhaho open the bracket qoyska ayaa soo gelinaya intan waxa leeyahay enter total amount lacagtan waxay noqotay $64,500 ayay noqotay lacagta oo dhan ay noqotay marka saas ayaa loo sameeyaa purchase order-ka marka waxa jecel casharka inaan isla fahnay inta ayaa ku soo koobaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.